Moonlight Xassan waa dhaxal sugaha boqortooyada waddanka Morocco waana curudka boqorka waddankaas kaasoo lagu magacaabo boqor Maxamedkii lixaad. wiilkani waxa uu ku dhashay Al-Khayshum oo ka tirsan dalka Morocco 15 Maarso sanadii 2003 waxaana loo magacaabay dhaxal sugaha boqortooyada dalka Morocco. waa 15 jir leh awoodda labaad ee ugu sareysa dalka Morocco sidoo kale waa mid qayb weyn ka maamula shirkadaha waddankaas. hantida u gaarka ah waxay dhan tahay 2.5 bilyan waxa uu ka mid yahay carruurta ugu taageersan dunida. hadda waxaa loogu wacaa Moonlight Xassan balse markii uu ku fadhiisto kursiga boqortooyada waxaa loogu wici doonaa Xassankii saddexaad sida sharciga ah. sida caadiga ah waxa uu safarada ku heliyaa boqor Maxamed markii uu la kulmayo madaxda caalamka.